كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعشركii 234 qeybtii lixaad ee dardaaranada iyo ducooyinka ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. weli waxaynu ku jirnaa dardaarankii aynu bixinaynay, waa kii 9aad baynu qaadan doonaa maanta, iyo dardaaranka 10aad iyo ka 11aad iyo ka 12aad. ka 9aad waxa weeye alrifqu fi inkaari lmunkari. ubadka yaryar dee gefkooda iyo qaladkooda ka dhacay ayaa mar kastaba iska badan. sidoo kale waxa iska badan ciyaartooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda ayaa marka aada u badan. marka waalidka waxaa looga baahan yahay baa la yidhahdaa inay mar kastaba ay ku sifoobaan sifada markaa la yidhahdo markaa macnaha dhibirsanaanta iyo dabacsanaanta, iyo markaa qaladaadka ubarku ay galaan inay markaa intii ay maaragtay si degan u sixi karaan ay hagi karaan marka ay sameeyaan. waayo waxa la yidhaha ubadkaa yara dee experiencegooda ama macnaha khibradooda ayaa waxaa lahaa markaa dee aada u yar, oo in markaa wixii la tuso iyadoo ilaahay subxaana watacaala uu ku abuurayba dee ciyaartay waxaasoo dhan uu ku abuuray marka deehooda kala duwan. marka taa wax looga baahanya waalidka baa laga inay markasta ubad markay khaladka galaan ama dembi ka dhaco inay markaa maxay u dhibirsanaan u dabacsanaadaan ay ayar u saxaan. markaa dardaaranka 10aad waxa weeye almudaacaba walmulaacaba, in ubadka markaa waxyaa activity-ga ay samaynayaan ama ciyaaraha ay kala duwan ay samaynayaan iyo wax kastoo marka ay qabanayaan in markaa lagala qeyb qaato oo markaa lala sameeyo. taana waxa tusaale inoogu fiican oo aynu arkaynaa nabigeeni moxamed ahaa calayhi afdalu salaati watasliimi. waxa uu ahaa mid markaa dee ubadka yare la ciyaara, mid markaa waa maxay ubadka yare dee dhunkada, mid markaa ubadka yarar u naxariista, mid markaa ubadka yarar maxay dee u qosla, mid markaa ubadka yarar maxay markaa u dhibirsan oo u dabacsan markaa xataa huwa fi salaati, isagoo xataa salaadiisa ku jira saynu wada ognahay. oo ubadka yaraa awowga u ahaa xasan iyo xusein uu markaa hataa saa markaa waxay u ilaalin si waxaa tukanaya salaada markaa hadday koraan oo kale markaa ay dushiisa saaran yihiin markaa salaadiisa wuxuu sii wadan jiray marka ilaa intay ka degayaan. marka waxay ku tusinaysaa dee naxariista zaa'idka nebigu ubadka yarar marka uu hayay markaa markay ciyaarayaan waxba adigu macnaha inaad ka weyn tahay ama ashkalo weyn waxba macnaha haysu arkine inaad markaa waa maxay waxa uu sameynaya la qaad marka ciyaarta la ciyaar markaa sidaa u ciyaaray sidaa u gaargaray. markaa dardaaranka 11aad waxa weeye takniya. waxa jira waxyaabaha ubadka saameynta waxa la yidhahda zaa'idka ku reeba naanaysta ubadka ama laqabka ama kooniyada ubadka marka waa maxay aada u bixinaysid. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa samayn jiro saxaabadiisa macnaha ubadka ay dhaleen qaar ka mid ah ayaa markaa waxa uu maaragtay naanaysahaasoo kale marka uu ku yeeri jiray, oo tuu ilmihii yaraa ku lahaa yaa abaa cumayru maada facala nugayru. abaa cumayrow macnaha shimbirkii yaraa muxuu sameeyey markaa abaa cumayr markaa waa kunyadiisii markaa buu leeyahay cumayr inankiisi macnaha abaa cumayr naanaysiisa weeye. sidoo kale markaa saxaabi ka mid a saxaabadiisii ilma yaru markaa u dhale markaa isagoo mara yar u xidhaya ayaa waxau ku lahaa ummu khaalidi, markaa khaalid hooyadiiye. marka macnaha naanaysaha waxyaabaha loo bixinayo ayaa iyaguna waxa la marka ubadka magacyada yar waxaas aada u saameeya. sidoo kale marka waalidka waxa looga baahan yahay haddii xataa aadan saasoo kaleba aanad dee magac fiican ba ama wax yaroo kale aad u bixinaysaa. saxaabadu de hadda carabo kale aad ba u isticmaalaan marka hadda saxaabadii hore oo dhan ama dadkii hore ba isticmaali jireen. qof magiisa waxa la yidhahdaa cali baa la yidhahdaa, marka ilmihiisoo kale waxa la yidhahdaa marka maxamed, marka abuu maxamed buu la baxaya marka maxamed aabihii kunyadiisi bay noqonaysaa. marka innaga markaa waxaa looga baahay sidaas aan samayn karin ugu yaraan markaad u yeeray sidoo kale qaab yaroo fiican oo hadal yaroo degan oo qurux badan oo ilmihii kusoo jiidan kara oo kugu jeclaan karo u samayn markaa macnaha ilmahaygiiyo macnaha kayaan jeclaayo kii quruxda badnaayo macaankaygiiyo macnaha eryada macnaha maxay fiican markaa quruxdaydiiyo ilmihii saasoo kale ayaad markaa waa maxay ugu wacaysaa. marka waxa waa in laga ilaaliyo ubadka magacyada markaa naanaysaha ama ubadka waa maxay xunxun aan wanaagsanayn ee dhaawacaya qalbiyadooda marka wax gaadhsiinaya oo doqoyahow nacasyahow waxba fahmi maysid waxba qaban kari maysid. waxaana macnaha magacyada aadka mataqaana aada ubadka loogu bixinayo ama loogu yeero marka inagu u yeerino waxa laga yaaba inaga magacyadeena
intaynu magac fiican ubadka u bixinay, cabdullaahi baad u bixinay, cabdiraxmaan baad bixinaysaa, maxamed baad u bixinay, magacyo fiican bay ubadka leeyihiin. haddaa laga yaaba markaad u yeedhaysid inaad qaab xun ugu yeedhid markaa marka talada ku xigta ama dardaaranka 12aad waxa weeye tacwiiduhum cala alqiyam alislaamiya. diinteena islaamku waa diin marka aada u qurux badan oo waxyaabo markaa dee wax kastoo wanaagsanna way sheegtay, wax kastoo xunna marka dadka way ka reebtay. marka waxaa jira qiyam iyo akhlaaq iyo waxyaaba wanaagsan diintu marka ay ku sifaysan tahay marka ay leedahayo oo qofka muslimkaa laga rabo inuu ku sifo marka u sameeyo mar kasta. marka ubadka yar markay noqoto waxaa la yidhaahdaa waa in marka waxa lagu tababaro inay markaa runta sheegaan. wax kasta macnaha ay qabanayaan, hadday si kasta wax u dhacaan in runta ka sheegaan. marka waxa la yidhahdaa inay al-amaana, waa in ubadka lagu tababaro inay amaanada marka ilaaliyaan oo ay xifdiyaan, haddii wax loo dhiiba ilaalin karaan oo meeshooda loogu iman karo iyaga markaa haya. kale waxaa la markaa waa inay ku sifaan baa la markaa cafinta, marka hadday dadkii wax isqabsadaan oo kale lagu tababaro inay waxa iska cafin karaan, iska dhaafi karaan. marka waa in lagu tababaro alcadlu, cadaalad inay markaa sameeyaano haddii dee markaa wax loo dhiiba ama haddii wax isqabsadaan, haddii wax dhacaan oo kale yidhaahdo way cadaaladda markasta ka tegay, saasaa loo sameeyaa, saasaa dadka lagu cadaalad sameeyaa waa in la baro. ta kale waxaa lagu tababaro waxa weeye wa ixtiraamu lkabiiri wa raxmati asagiiri. qofka ka weyn inay markaa waa maxay ay ixtiraam kula joogaan, ka yarna inay markaa u naxariistaan. markaa sidoo kale atawaaduc, marka inay noqdaan ubad iska degan oo iska maxay quyar socda, iska hambal ay noqdaan, oo dafdaf badan, qaylo badan, ama waa maxay isweyni badan ama isqaadqaad badan ama kibir badan markaa maxay aanay noqon. waxaa kaloo la yidhaha waa in lagu tababaro inay noqdaan kuwa markaa rifqi bilxayawaani wagayriha. macnaha marka bani aadamka ama huyuumaka inay saa wada dhaqmaan laga yimaado, sidoo kale waa inay xayawaan kala noqdaan kuwa markaa maxay aan dhibaato aan gaarsiin, bal iska badaaye xayawaankaa ilaaliya oo u naxariista markaa ayaa markaa looga baahaya. marka ubadka yaryar diinta islaamku waa in loo sheeganata markaa diin waa maxay wanaag iyo khayr iyo qurux markaa wadato oo dadka wax wanaagsan markaa faraysa. marka 4taa qodob baynu insha allahu tacaala ku joojinaynaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam.